بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكيغا داوانيستا مدغلا سocota waa barteeni aan ku lahayn mareegta YouTube Ismaaciil Said fadlan dadku cusub tahay channel ku soo dhawow subscribe dhag gambarka nu furo video-gana la gare isu soo dhaqdo wanaagsan kulli muddo dheer ayaynu kala maqnayn Ramadaan iyo xaalkeedii ayaynu ku jirnay Ilaahay ha naga aqbalo muddada aynu soo cibaadeysay soomkii iyo salaadii iyo taraawixii taajidadii kala duwan ay acmaashan qabanay sadaqaadkii Ilaahay ha naga aqbalo dhamaantiinba كلي waxay inaga xiga waa wax yar saacado kooban baa inaga xigay iidii in laga geeriyoodo weeye in laga gowbo maaha in yaro baraarujina ayaan soo galay maanta in aan igu baraarujiyo aan naftayda ka bilaabaya walaalahay kalena gaarsiinaya sida wada ogsoonahay maalinta yoomul iidka yoomul faraxa ah maanta la faraxsan yahay dhamaantiinba caruur iyo dad waaweyn iyo mid yarba aynu wada faraxsanahay waxyaabo qaladaad oo inaga dhaco oo yar yar oo kooban ayaa jira kuwa ayaan laba mid ka soo qaadanay ku sii fogaan maayo kaleeyay wixii inta ka faahfaahsan culimadana la khayraasiyo ayaan badan ka hadlay oo dhinacyo badan oo kala duwan ka taabtay anu laba qodob oo kaliya ayaan naga soo qaadanaya qodob kaliya oo laba farac yeelanaya oo ah maalinta caruurteena yar yar dhamaantoodba haday yihiin wiilal iyo haday gabdho yihiin ba wana iidsiina oo ka farxinaa oo la iidna meelaha dalxiiska meelaha wanaagsan baynu geynaa hase yeeshee qodob aynan ku baraarugsanin ayaa jiro oo caruurteena dhar aan ku habboonayn ayaynu soo xidhnaa khaasatan hablaha yaryar ee soo koraya caruurta ah dhar yar oo khafiifa ayaynu soo xidhnaa madaxa iyo timaha waynu soo qaawinaa inagoo oo daliishanayna ama cudurdaar ka dhiganayna caruur weeye maxay tole cawra ma laha wax dhibi kuma jirto sidoo kale wiilasha yaryar maxay canugyada ah iyagana marka xagga loo xiiraayo iyo xagga qaabka ay u labisanayaanba iyagana waxba kala khaldanaada iyagana sida tii hore oo kale waxaynu dhamaanteedba ictimaadnaa ama aynu maxay tole daliil ka dhiganaa waa caruur oo waxba ma laha hadhow markay iidu dhamaatano timahoodan yar kala sarsaraysiiyey waan iskaga soo xiiraynaa iska dhamaan doontaa dhowrka cishe iidda ha iska faraxsanaadaan waalidkeena la khayra siiye waxaad moodaa inay ayaamaha yare iidda ay aynkan ugu xirxiirayaan caruurtooda ay ayaamo farxad gaara siinaya ay yihiin sidan ay ugu xirayaan taasina dee waa dembi weyn oo ay ilaahay iyo nafteena ka galay caruurteena ubadkeena wiil iyo gabadhba waxa aynu maanta ku barbaarino ama inta uu yar yahay ee caqligiisu aan ku fileen waxaynu ku shubno ayuunbu hadhowna la meel maraa uu la shirtaga uu la weynaadaa uu dabeeta mujtamacana la dhexgalaa ilmaha isagoo yar la qalqaloociye ee maxay ahayd tooy tarbiyadiisii wax la yeelay ee la yiraahdo hadhow marka uu weynaado ama marka uu isagoo garaadaya isaga hagaagi doona wixii lagu soo koriyay iyo caynkii u egaay buu dadkan la dhex tegaya hadhow oo bulshada kale la dhex galaya ka isagoo yar la toostoosiyay ee wax walba oo laga doonayo mustaqbalkiisa ama in uu maxay tole fartoo markuu weynaado loo sheego la tusiyaano hadhow sidaas buu isaguna ku barbaaraa dee dhamaanteedba waxay nagu waajiba ina saaran inteena waalidka ah iyo inteena ka mas-uulka iyo inteena wax qaradka dhamaanteedba inaynu ku baraarugsanaano arrinka khatarteeda leh marka maanta cabadkaaga yar inantaadii yareed ee dhalatay caruurta cunugteeda iyadoo madaxa qaawan oo dalad yar oo kurdad yar oo jeexjeexan oo hareeraha banbanaan u xidhaa tirahda waa caruur britol markay weynaatona dee tiyo gashaantiyo oo maxay ahayd tole geeyaankeeda dusha ka eeganayo ayay iyadoo madax qaawan oo nooca imika ay tahay kale uun kusoo bixi doonta ilaa wax dhibo aragto maahay oo waxay yareanteedii kusoo barbaartay wuxuun baan kusoo xoorinayaan leeyahay ubadku qawaaniinta loo qotomiyo iyo qoyska wixii ay ka qaataan ayuunbay ku barbaaraan oo hadhowna bulshada inteeda kale qayb kala qaataan kolley suugaantu hadalka way soo koobtaa kelmado yaroo kooban oo suugaana ayaan ku odhan doonaa intii maanta aan lahaa faraha badnayd ee mirarada badan naga qaatay inaan hal mirar iyo wax yar kusoo koobo waxaanan leeyahay qaafadii haweeniyo qumaanaha halyeyga waxay qaayib ku leeyiin qawaaniintii la quudsiyo qolqolkii loo qaraariyo qudwadii ay lahaayeen qurboodkii la qayaayiro wuxuu qowlkugu geriifiyo wuxuu qoobku jallaafaba waa qaydaad u qaartay asalaamu calaykum waraxmatullahi